odayaasha iyo waxgaradka iyo dhammaan shacabka beesha sade ee ku dhaqan koonfurta degmada Gallaadi ee gobolka Doolo oo kulan ku yeeshay santarka Yamaarugley ayaa cabasho ka muujiyay ceelbiyood la doonayo in laga hirgeliyo deegaanka Landari ee u dhaxeeya Yamaarugley iyo Miira Farataag. waxa ay sheegeen in deegaankan la rabo in sifa sharci darro looga hirgeliyo matoor aan ka sharciyeysan dowlad deegaanka, balse ay wataan siyaasiyiin dana gaar ah wata oo doonaya inay iska hor keenaan bulshada nabadda ku wada nool. odayaasha iyo waxgaradkii goobta ka hadlay ayaa ugu baaqay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar iyo mas'uuliyiinta kale ee dowlad deegaanka inay ka hortagaan in deegaanka Landari laga qodo ceelka, iyagoo xusay in qodista matoorkan Landari ay iska hor keenayso shacabka walaalaha ah. anoo ku hadlaaya bulshada cadadkeedu inta la eegyahay kamid ah gobolka Doolo degmada Gallaadi kana degan koonfurta degmada Gallaadi haddana ku kulansan hoolka nabadda gobolka Doolo degmada Gallaadi santarka Yamaarugley oo ay ku kulansadeen maantay laba qaybood baan rabaa inaan haddii alla ikarsiyo kaga hadla halkan. marka hore waxa weeyaan cabasho ummadda isu keentay, marka horena waxa weeyaan baaq nabadgeliyo. waxa bulshadaas cadadkaaluhu cid kastaabana ka dhex muuqato ka cabanayaan dhibaato ka oloosnayd bilahan dambaba Yamaarugley iyo Miira Farataag dhexdooda deegaanka la yiraahdo Landari u jidhay Yamaarugley 7 kiiloomitir dusheeda matoor la soo dhigay, matoorkaas oo aan ahayn mid ka sharciyeysan dawladda, mid loogu talagalay khalkhalis iyo nabadgelyo la'aan, mid loogu talagalay deegaameen cusub, mid loogu talagalay mataqaanaa bulshada in la iskaga hor keeno dad gaar ah oo danlayaal mid ay wataan. matoorkaas wuxuu keenay inuu bulshadii khalkhaliso geliyo u horseeda nabadgelyo la'aan, isu shigasho badan oo ay timaado. waa cabashada koobaad oo ummadaas oo ay ka cabanayso. halka beelaha wada degan oo walaalaha oo hadda ka hor dhibaato ka dhacday oo markii dawladdii hore xataa Tigreegu wadanka haystay hal kale markii la waayay yaa waxa la gaaray markii dadkii isku leeday deegaameyn inaan wadanka laga deegaameyn. dawlad baa saxiixday, nabadoonnaa saxiixay, ummadda deegaanka oo dhan baa isla garatay inaan meel dambe la deegaameyn. ninkii xataa barkad ka qoday waa laga xabaalay. waxaa intaas baa lagu joogay, nabadgelyadaasaa la isla qaatay, dadku saasuu ku daaqi jiray, saasuu walaalo ku yahay. deegaanka waa la kala leeyahay, dadku daaqaa ka dhaxeeya, laakiinse deegaankiisa waa la kala leeyahay. deegaankii saas ahaa oo koonfurta degmada Gallaadiyeed ahaa. waxaan ka digaynaa dhibaatada ay ku hayso salka uu ku hayo riigaas uu ku hayo baan ka cabanaynaa. waxaan ugu baaqaynaa walaalahanaga riigaa lahaa dhibaato ma doonayna riigooda inay meesha ka qaataan. waxaan dawladda fariino aan gaarsiinaynaa, waxaan ka cabanaynaa dadka mas'uuliyiinta ku tilmaaman oo gobolka ka yimid ilaa heer degmo ah oo dhibaatooyinka iyo isku dhaca beesha iyo barakicinta dadkii baadiyahaas deganaa lagu barakicinayo lagu degaamaynayo in la ka soo gaaro oo madaxdu ay ka naga soo gaarto oo laga qabto dadka shacabka oo reer baadiyaha meeshii tuulooyinka ay u degi jireen oo makacdada ku ahaayeen oo xooluhu u joogeen oo aan degaan qaban karin oo tuulo isu jirta 10 kiiloomitir ama 7 isku jirta inaan dhexdeeda degaan qaban karin oo matoor qaban karin oo magaalo qaban karin oo aan biyo looga baahnay. dadka meeshaas matoorka wata ma ay deganaan meeshaas, baahi biyood kama jirto, mana ay deganaan ayagu. waxaan ugu baaqaynaa meesha ay degan yihiin inay geystaan matoorkaas. waana la kalifayaa, waana la ku soo duulay dalka deegaanka. dalka dadku waa kala leeyahay, cidba meel bay degan tahay. waxaa loogu soo duulay dal durugsi ee ma ahan meel biyo la'aanu ka jidho, meel ay ka jidho dal la'aan, meel dad la'aanu ka jidho maahan. afartaa degmo oo degan oo dunyalayda meeshii xoolaheedu daaqi jireen ninka danlaha oo matoorka inuu ka qodan rabo waxaan u dulqaadanaynaa ma ahan. dawladdana waxaan ogeysiinaynaa arrimaha noocaasa inay horta ku samayso khalaanqalka
iyo dhibta dadku wato ninka danlaha ahu waxaan ogeysiinaynaa inay dawladdu wax ka qabato oo la rabo in shacabka dawlad deegaanka la isaga hor keeno bulshada nabadda colaad lagu geliyo waxa wada oo ka soo shaqeeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha Cabdi Dheere iyo Mubaarak oo ah gudoomiyaha xisbiga gobolka labada nin iyo maamulka degmada Galaadi oo runtii ahaa maamul dhibaato badan deegaanadan ka sameeyay oo mar walba oo ay u baahdaan budget dhaqaale qalalaaso bulshada ka dhex abuura si ay akoonka dawladda dhaqaale uga baxaan kooxahaas isbahaystay ayaa waxay doonayaan in ay boob iyo musuqmaasuq bulshada dhexdeeda intay ka sameeyaan oo lacago iyo laaluush meelo kale laga soo waariday ay bulshada dusheeda ku qaataan in shacabka dawlad deegaanka ay iska hor keenaan oo dhibaato ay dhex dhigaan arrintaas waxaan bariin iyo baaq u diraynaa madaxweynaha dawlad deegaanka Mustafa Maxamed Cagtar hoggaanka nabadgelyada heer kilil oo ah qofka ugu sareeya dawlad deegaanka amnigiisa iyo dhammaan golaha wasiirada iyo cid walba oo mas'uuliyad ummadeed ama mas'uuliyad dawlad deegaan ay qabanayso arrintani waa arrintaas la soo abaabulay oo shakhsiyaadka aan aaminsanahay inay dana kale leeyihiin oo meelo kale laga soo abaabulay ama u shaqeynayaan rajiimyadii hore ee wadankan soo curyaamiyay oo waxa ay bulshada u geysteen la og yahay ay wadaan waxaanu leenahay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagtar hoolkani waa hoolkii nabadda waa hoolkii xargaad ka jirtay mudane madaxweyne bulshada dawlad deegaanku waa bulsho nabadeed khaasatan bulshada deegaanadan waa bulsho nabadeed annagu waxaan diyaar u nahay ka bulsho ahaan inaynu qaybta aan leenahay ee nagaga aadan ka qaadano amniga horumarka iyo siyaasadda dawlad deegaanka waxaan doonaynaa dawladda Itoobiya arrinka inay ka hortagto waxa weeye si degdeg ah wax looga qabto li'anno maxaa yeelay dawladda Itoobiya arrinka way ku faleexaysan tahay ubaxeedu inuu islaayo annaga waxa weeye nabadda ilan ka shaqaynayno marqaati madaxda Itoobiya oo dhan baa nooga adduun weynaha madaxdiisa ayaa marqaati nooga ayala Cabdullaahi Jaamac Home Cable TV iyo Marugley